xildhibaan Amiir Aadan waa mudane Soomaali ah oo ka tirsanaa baarlamaanka Sweden 8 sanadood u dambeeyay. Amiir Aadan oo ka tirsan xisbiga moderaadka ayaa markii saddexaad u sharaxan aqalka baarlamaanka ee looga taliyo dalkan Sweden. Amiir Aadan maadaama uu yahay xildhibaanka kaliya ee Soomaaliga ee ku jira baarlamaanka dalkan Sweden wuxuu hawlo badan ka qabtay arrimaha Soomaalida iyo dhibaatooyinka Soomaalida ka soo wajaha wadankan Sweden. arrimaha lagu xasuusto ee ugu waaweyn ee wax ka qabtay waxay ahaayeen markii dalkan Sweden ay xanibeen qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ay lacagta isugu diraan dadka Soomaalida ah. iyadoo xilliga uu xildhibaan Amiir uu kulan ballaaran ku qabtay xarunta baarlamaanka ee Sweden kaasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xawaaladaha Soomaalida iyo madaxda iyo xildhibaanada dalkan Sweden iyo waliba agaasimaha guud ee bangiga Swedbank oo bangiga ay la macaamilaan xawaaladaha Soomaalida qaar badan oo kamid ah. kulanka wuxuu ku guuleystay Mr. Amiir inuu ku qanciyo xukuumadda Sweden iyo madaxda bangiyada inaan la xanibin xawaaladaha Soomaalida oo ah habka kaliya ee dadka Soomaalida ah ay lacagta isugu gudbiyaan iyadoo arintaasna uu soo afjaray. Bismillahir Rahmanir Rahim. ujeedada kulankan waxa ay ahayd in shirkadaha u qaabilsan adeegga lacag dirista Sweden inay isugu yimaadaan halkan oo ay loona qabto dadka maaragtay arrimahaas khuseeyaan sida bangiyada iyo maaragtay iyo organizationada kale si loo abuuro jawi isfahan oo isku soo dhawaansho ah oo ay maaragtay waayahan waxa batay in xawaaladaha qaar ka mid ah laga xidhay koontooyinka laga xidhay marka si arintaasi looga fogaado hadda wixii ka dambeeyay in maaragtay la abuuro jawi isfahan oo isku soo dhawaansho arrintaas waxay u egtahay mid ugu guuleystay aad baan ugu faraxsanahay in halkaan ku kulanno. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxa mahad gaar ah u soo jeedinaynaa walaalkeen Amiir Aadan oo xildhibaanka ah dalka Sweden oo aad nooga caawiyay shirkan seminaarkan maanta ku saabsanaa arrinta walaalkeen hore noogu sheegay. waxaan ka codsanaynaa macaamiisheena degan Sweden oo dhan inay nagu caawiyaan si bunuugta dhibaatada naga haysata ama ayaga ka qabsan doonta ay nooga fududaato inay nagu caawiyaan macluumaadka iyo naga saxaan shuruucda laga baahan yahay. The main reason is that the Swedish bank says that they cannot see the flow of the money from the one who's sending to the one who's receiving in Somalia. So the main reason is that they cannot see who's getting the money in the end, if it sends to Somalia or Somaliland or Puntland. They don't have any control over that. And then first of all, I would like to state that we don't stop all our connections with the Somalian money remitters. It's only when we cannot prove. xildhibaan Amiir Aadan ayaa ka hadlay arrimaha ay wax ka qabanayaan isagoo ugu horeyn xusay sida isaga iyo xisbigooda moderaadka ay uga go'an tahay inay sare u qaadaan caafimaadka iyo goobaha caafimaadka iyo dhakhtarada. waana kan isagoo arinta ka hadlaya isla markaana booqday qaar ka mid ah isbitaalada. Sjukvårdsköerna i Sverige har mer än fördubblats på de senaste 3 åren. Och i snitt var 10:e äldre får vänta 8 timmar på att träffa en läkare på akutmottagningen. Detta är helt oacceptabelt. Därför satsar vi moderater nu på en 3-dubblad kömiljard för att på så sätt minska köerna, men också öka attraktiviteten för såväl läkare, sjuksköterskor som undersköterskor så att fler vill jobba inom vården. xildhibaan Amiir Aadan waxa uu sidoo kale ka hadlay ganacsiga iyo siday doonayaan inay u sii horumariyaan isagoo booqday goobaha ganacsiga ee dadka Soomaalida ay haystaan iyo qaar Swedish ahba. wuxuuna xusay inuu doonayo in dadka Soomaalida ay noqdaan kuwo ganacsato ah oo isku filan wadankana ay ka noqdaan dad hantiila ama maalqabeena. waxaana kamid ahaa hadaladiisii. Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sverige, men det ska också vara lätt att kunna anställa fler, för det är inom företagen jobben skapas.
Amiir Aadan wuxuu sidoo kale soo booqday xaafadda Ringiby ee magaalada Stockholm oo ay dadka Soomaalida ay si aad u weyn ay u soo dhaweeyeen. ugu dambeyntiina xildhibaan Amiir waxa uu ka hadlay waxa uu doonayo in lagu doorto iyo waxa uu dadka u qaban doono. Hej, jag heter Hadii Aad och är riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2010. Den 9 september i år är det riksdagsval. De frågor jag brinner extra för är att se till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, se till att unga kommer in på sitt jobb så tidigt som möjligt, men också se till att förenkla för småföretag att anställa fler. Rösta på mig den 9 september om du vill att jag ska vara din representant i Sveriges riksdag.